المتحدة هي منظمات كده ترى بدن ل منظمات عافمات منظمات دقائق محلها يونسكو منظمات UNDP waxaan tirada badan ay hoosta ku wataan intaas oo dhan marka la isku daro waxay ka winaan afkaarta maanta dunida musaytirka ama xooga badan lee socota sadaradeed مثلا hay'ada المتحدة oo aan oran karno de waxay matalaysaa ra'yiga ragga waaweyn shanta dawladooda veto gale iyo inta daba socota ra'yigeeday matalaysaa munadamadaasi waxay qabataa intaasoo mu'tamar iyo urur oo ku saabsan qaabkan aynu u soconno qura qoyska haweenayda iyo ilmaha soo familigu intaa kama koobna waa ima qofka dumara ninka isaga wax badan cid ku falimayse iyo caruurta labadaasa wax badan mu'tamaraad loo qabtaa مثلا waxa kamid ah mu'tamaraadka sukaanka iyo tanmiyada bay dhahay kobaca bini'aadamka ee dhaqaaliya dad mu'tamaraadka loo qabto inta badan 10kii sanaba mar bay qabtaan 74kii 47kii Bucharest baa lagu qabtay 48kii Mexico baa lagu qabtay 94kii kadnan baynu qayladiisa inta badan maqli jirnay qaahira lagu qabtay مثلا كقاهرة لغو قبطي بقول يلحدن دولادات بقى سو قيب قلي يكون يلا بقول او urur او NGO يا منظمات غير حكومية NGO يا كوا شيكتا كون يلا بقول او urur امسا مسلم هذا ما لينس كون يلا بقول او urur يا بقول يلحدن دولادات بقى سو قيب قلي بيدادان محل النقاش يغوا وينا waxyaabaha ugu weyn ee la niqaashay waxa kamid ah al-hurriya al-jinsiyya in dadku xor u noqdo sagaskiya galmada oo waxa laaliya waxa qaanuun waxa xaaraantinimeynaya baabka ku saabsan in la tuuro waa inanka lama xukumi karo inanta lama xukumi karo guurku waxa taqaaneen maaha rag baa rag guursada dumar baa dumar guursada waxba waa la isku daraya wixii la doono waa inuu noqdaa free shayga labaad ee ugu weynaayay isna laga doodayay ee mu'tamarka 160 dawladood isugu yimaadeen iyo 1200 oo urur waxa weeyaan uurka aan la doonin in la tuuri karo yani ilmahan la iska soo ridayo qofku inuu xor u ahaado hadduu aanu marquub ahayn wax la doonayo haddaanu ahayn in la tuuri karo waxaa jira mu'tamaraad kale oo dumarka oo qura loo qabto oo iyana hoos yimaada United Nationska ayaa waxa hoos socda مثلا waxaa kamid ah mu'tamarkii Nairobi lagu qabtay 1985kii mu'tamarka caanka inuu iminka warkiisa wali xooga u maqallo ee Bakin lagu qabtay 1995kii ka Bakin waxyaabihii ugu weynaaya lagu niqaashay maxaa kamid ahaa gabadha iyo caafimaadka gabadha iyo xuquuqdeeda gabadha iyo faqriga gabadha iyo bii'ada wasiiqadii ka soo baxday maxay yiraahdeen hal wasiiqo ka soo baxday waxay sheegaan 230 goor buu ku soo aroray ereyga gender ma taqaani genderku luqa ahaan waa wax sagas ku dhow lab iyo dhadig laakiin ma aha socially markay inoo fasirayaan iyagu say u sharxayaan waxay leeyihiin ninnimadu iyo gabadhnimadu waa dawr ijtimaaciya waa wax qofku uu matale wuxuu u dhasho maaha gabadhan biologically aynu inagu gabadha u naqaanaa gabadh maaha ninkan aynu nin u naqaanaa nin maaha ee shaqadu bulshada ka qabto bay ku xidhantay gabadhuna nin bay noqon kartaa ninkuna gabadh buu noqon karaa marka shaqada bulshada ka qabato saadaradeed baa waxa la diiday in female iyo male la qoro مثلا دولته أفريقيا قيبة بدر كمدة يا مسلم كي وحساد ديدا رجاسي وكدودي مركز اللي يري جودي هالله صار جودي بالله صار هرقل بدو حيلين ما جندر وين لو قراوة كاسيو جندر لما بقول يصدق نقر وثيقة قوية لو هلا ديفاين قريه بهلا شرح يا رجال محيي وثيقة دي قدام يسوي حكوا صباح دايما تغنى
sharxi markii lagu heshiin waayay waxa lagu qoray the non definition of the term gender bay yidhaahdeen waa lama sharxaan nin walba saa doonta u qaado duni isu timi oo waraaq wada qoranaysa oo waxa ku qoran la nin walba saa doonta u faham laba sharxayo waayo waa lagu heshiin waayay erayga gender ku qora qof walba sidii aad adigu doonaysa u qaadun weeyaan waa the non definition of the term gender bay yidhaahdeen waa taswiiq lil afkaar baa la faafinaya oo waxa soo mu'tamar inta loo qabto lacaga lagu bixinaya la wadaya afkaartaas waxa lagu sameeynaya idinku waxa taqaaneen malaayeen iclaanaad loo sameeyo maxaa la yiraahdaa cunada iyo alaabtan aynu iibsanay iyo waxa loo sameeyaa maxay taswiiqa marketingka iclaan waxa ka weyn iclaanka maanta dunida afkaarta loo sameeyo afkaar baa la faafinaya afkaarta qurxin la qurxiyay oo مثلا afkaar iyadoo la faafinayo mustalahaadka dadku ay jecel yihiin baa lagu isticmaalaa xuquuqda rag xuquuqda dumarka xuquuqda caruur ma qof binaadam xuquuqdiisa diidan ba jira hadii lagu dhaho xuquuqda dumarka de waxa tilaada waa wax fiican saxiixa maaha laakiin xuquuqda la sheegaya waxa weeyaan suuqeeda way inay geli kartaa sagaska cid ay doonto waa inay la sameyn kartaa sharci ma kuma xidhna qaanuunku inuu guur kuma xidhna sagasku guur iyo guur la'aan waa la sameyn karaa family-gu wada deganaan karaa family maxaa loo yaqaanaa nin iyo gabadh isqaba oo sharci la isugu meheriyey wuxuu doonaba sharcigu ahaadee waxaa kaloo loo yaqaanaa baa nin iyo gabadh wada degan meherba yuu dhicine waxaa loo yaqaanaa laba nin oo wada degan oo la isu meheriyey haddaba laba nin waxaa loo yaqaanaa laba nin oo aan la isu meherine wada degan bay ku leeyihin waxaa loo yaqaanaa laba dumar oo la isu meheriyey laba dumar oo aan la isu meherin ilaa 12 qaybood wax ku dhadhow buu tilmaamayaa wasiiqada United Nations iyo qoyska maxaa qoysa adu marka aad maqasho usrada hal horumariyo waxa soranaysa reerihii baa wax loo qabanaya oo familieskii iyo qoysaskii baa la wadaa laakiin qoysku sitaa waa qoys nooca kana marka aad maqasho xuquuqda dumarka waxa leedahay xuquuq dumar baa laga hadlaya laba mid oo aqliga bini'aadamka gali kara hoosta laga soo gelinaya guurka maxaa la yiraahdaa isheeg waxay sheegi jireen waxay fircooniga gudniinka fircooniga hal joojiyaad meelaha ku arkaysa dabeetana konton kalena waa la sharxaya idan waa litazyiin waa la qurxinaya waxa kan waxana waa laac la dhigayo laakiin afkaar badan ay ka dambeeyaan mararka qaarkood alminax baa ku xidhan dawladuhu waxay bixiyaan haloranayaa dawladdaasi xuquuqda bini'aadamka ku xadgudubtaa la siin maayo aidiskay dawladaha waaweyn bixin jireen xuquuqda la sheegaya waa maxay waa ragga u taga ayaanad xaqooda ogolayn ama qaanuun ciqaabaya baa leediin Uganda imika qaanuun ciqaabaya saxeexeen dabeetana dunida dhan baa qaylinaysa waxay dhahdeen usrada qoyska oo wata macnihii bini'aadamnimo xadaareed wuxuu dunida ka jira bay yiraahdeen caalamka muslimiinta inkastoo muslimiintu nolosha inta kale oo dhan ay mutakhalifiin ka yihiin nolosha inta kale oo dhan waa dib u dhac baa kaga jira bay leeyihiin laakiin qoysku ninka mas'uulka ee reerka haya ee ka mas'uulka ee caruurtu joogto ee dumarku joogaan cid walba ee isku xidhan ee takaaful ka dhaxeeya is ixtiraamaya kala dambeeya ee is adeecaya ismaamula qoyska noocaasi wuxuu ka jira bay dhahaan dunida muslimiinta تمعناه ده حوي أنا أمان لينوسو كذي بل يمكن عصورة دمنا دقيسو ممثل كصندوق السكان في الأمم المتحدة و UNFPA هولندا وحلا آري هوكمان أيها وحكا خد بدين أيها ندور لقو قبطي مكسيكو مركا وحو كفر حسين يسبدل كالدنيدو أي قويس كقسم يسيهده محوليه إن ارتفاع معدلات الطلاق وكذا ارتفاع معدلات المواليد خارج نطاق الأسرة يعد نصرا كبيرا لحقوق الإنسان على البطريركية وحوليه هي ترضا بضطية فريتانكا طلاق الدنيا وو بطيبولي وحكلوب بطيبولي عرورة الشرع الدرادة كلها لطا ينقور لغو دالين
labadaaba waxaan u arkayaa buu leeyahay guul xuquuqda bini aadamku ay gaadhay inay tahay weligaa ma maqashay waxaa idhaha in la isfuro iyo caruur garacye inay dhalato wuxuu ku tirinaya inay tahay yucaddu nasran kabiiran lixuquuqi اlinsaan cala albatrarikiya batrarikigu waa maxay waa mujtamaca ninku ka taliyo mujtamacii ninka taliska ahaabaa laga baxay buu leeyahay laga xoroobay oo dumarkii iyo carruurtii baa ka xoroobay markaa sharci darrana waxbay ku dhashay markay doontana furitaankeeda ay qaadatay wuxuu ku tilmaamayaa markaa inay tahay xorriyad Annie Fostas daraasa uu sameeyey waa Maraykan wuxuu leeyahay dunidu caqligii hore ha ilowdo ee ahaa sakasku inuu tuu yahay mailan fii mail inuu yahay alajnaas alkhamsa hadda weeyaan buu leeyahay nooca bini aadam ina taqsiim alkhalqi ila dhukuurin wa inath buu yidhi asbaxa waaqican tajaawazahu zaman bini aadamka in iminka loo qaybiya buu yidhi lab iyo dhadig waa war laga tegay buu leeyahay walam yacud yacbur بدقة عن حقيقة الواقع الإنساني ذلك أن الواقع أصبح يحفل ب5 أجناس وروح لا يرهضان نين يقبل الدنيا هدا كما تشرانه شن نوع بني آدم ما بهد تشربوا لي وأكوي رجع برجي هرا لورين شري ولا دي دمر كبرجي هرا لورين شري رجع عصبة رجع كرة دمر كعصبة دمر ككرة إيوه إن rag iyo dumarka la isku bedelo kuwan ay biologically intay qalaan ay bedelaan markaas yani nin baa la qalaya hormoona lagu mudaya naasa loo sameynaya mahbal sanaaciya loo sameynaya waa la gabadhaynaya isagoo gabadhu markaa noolaanaya ficlan ma u malaynaysaa midkaasi intuu soo islaamo diinta dib ka fahmay in la garan waayo safka masaajidka xagga lagu dari doono xagga dumarkaa la geey xagga raggaa la geey caalamku aynu joognaa maaha daraasa nin quri sameeyo qura waxaanaynu sheegayno afkaartaasay united nation cawlama u samaynaysaa united nation baa rabta globalization afkaarta noocaasi inay ku samayso waayo akbar munadamaat alcaalamiya lixuquuq اlinsaani waashhariha cala aliطlaaq ayaa waxay leedahay waa in la damaano qaadaa kaafat alxuquuqi lishawaad على المستوى الدولي القانوني والتشريعي مركزا لحدا دولة دوديدين بلا وحيد هذا أري كان homosexual في إنجليزي قالوا هذا أري كان هلا طورة بيد هذا ما استعماله LGBT وحلا هذا LGBT ما غشة LGBT وافرك المدود الله يسكرنا باي إيش وحيد تاج أنت lesbian dumarka fuula jiid waa gaay ragga kora bid waa bisexual waa mid labada dhanba isticmaala tiida u dambaysana waa transgender bay dhahdeen waa kuwan la bedelay aan sheegaynay marka LGB ha lagu bedelay bay leeyihiin meesha tan oo xuquuqdooda ha la raadiyo haddaba ayuha alikhwa afkaartaas runtii maaha afkaar masaajid lagaga warramo laakiin waxaan arkayaa iyadoo aayar soconaysa inay magaalooyinka idinla joogto